إثيوبيا وقت حاضر كان وادل كميدا كوا ugu xasiloonida daran guud ahaan Afrika dagaal socda wax ku dhow sanad ayaa ka holcaya dalkan gobolada dalka kan Soomaalida ma ahana tobanka kale qaraxa baaruuda iyo rasaasta ayaa gaadhay ciidamada federaalka Itoobiya oo kaashanaya kuwa qowmiyadaha iyo shacabka hubaysan ayaa dagaal aan dhamaadkiisa la aqoon kula jira kooxda TPLF ee talada Itoobiya gacanteeda ay ka baxday bishii Abriil ee sanadkii 2018 hase yeeshee hadda u hardamaysa inay mar kale talada la wareegto dagaalka ayaa dib u soo cusboonaaday kadib markii Tigreegu ay ku fideen gobolada Amxaarada iyo Xanfarta halkaas oo furimo cusub oo dagaal ay ka furmeen inkasta oo TPLF khasaare ba'an ka soo gaaray haddana wali waxa ay wadaan xaaladda taagan ayaana keentay in wada hadal laga galo laguna fakaro hadda xalku sida uu yahay dawladda Jarmalka ayaana garwadeen ka noqotay arrinta weyn ee wada hadallada ah iyadoo oo Mareykanku uu dhawaan la xaqiijiyay inuu iyada u gadaal fariistay iyadana uu marayo dhammaan wada xaajoodyadu nooca yihiin waxa xogaha lagu helay in xisbiyada mucaaradka ee ka dhanka Abiy Ahmed iyo TPLF labaduba ay kulan la qaateen wafdi ka socda Jarmalka kaasoo wakiilka ah xukuumadda dalkaas waxana kulankaasi uu ka dhacay Naazreet oo u dhow Addis Ababa halkaas waxa lagaga hadlay hindise horudhaca kaasoo lagu dhisayo xukuumad wadaag ah oo u dhaxaysa Abiy iyo mucaaradka aan hubaysnayn sidoo kale haddii uu hirgalo kulankan mucaaradka iyo Abiy waxa lagu dari doonaa wada hadalka madaxda kililada dalkaas si loogu guuro dawlad deganaan dalkan u horseeda Jarmalku waxa uu si xoogan uga shaqeynayaa in talada Itoobiya aysan ku dhammaan burbur iyo in la kala adkaado Abiy waxa laga sugayaa inuu dhageysto hindisahan dhanka kale Mareykanka ayaa isaguna soo jeedinaya qorshe kale kaasoo kaga dalbanaya Abiy ku dhawaaqista xabad joojin 4 maalmood gudahood iyo intii TPLF talada gobolkooda loo daayo lagana wada hadlo dhisma xukuumad xilgaarsiin ah taasoo ka samata bixisay Itoobiya rabshadaha iyo colaadaha aan dhamaanayn safaaradaha Mareykanka iyo Jarmalku waxa ay si gooni ah xabsiyada ugu booqdeen madaxda Oromada ah ee xiran waxa ay ka codsadeen inay ka qayb qaataan badbaadinta Itoobiya weyn waxa lagu fasiray in xubnuhu ay dhawaan xabsiga laga sii deyn doono ila wareedyo heshiisyadan ku gadaaban iyo dhaqaaqyada socda ayaa laga soo dheegtay in Itoobiya aysan xal ku keeni doonin dagaalka waqtigan socda cagahana ay la sii galayso marxalad aan sahlanayn ila wareedyada heshiisyada ku gadaaban iyo dhaqaaqyada socda waxa kale oo laga soo dheegtay in Itoobiya aysan xal ku keeni doonin dagaalka taasoo ay garwadeen ka yihiin Mareykanka iyo Jarmalku labaduba waxa ay doonayaan in xukunka iyo awoodda wada hadalkaba ay ku timaado si nabdoon oo dhinacyada oo dhan ay iska raalisaga yihiin macluul baahsan ayaa waqooyiga iyo galbeedka Itoobiya ka dilaacday waxa meesha ka baxay wax soo saarkii gudaha waxaana ciriiri ku jira geedka daafida oo laga sameeyo canjeelada oo ah cunnada loogu isticmaalka badan yahay dalkaasi qaramada midoobay waxa ay walaac daran ka muujisay xaaladda taagan
waxaana ay tabiyeen in go'een dhammaan dariiqyadii cuntadu mari lahayd inkasta oo barnaamijka cuntada adduunku ay kal hore dowladdu ku eedaysay inay hub u gudbiyaan TPLF haddana WFP ayaa isha ugu xooggan ee quudisa kumanaanka barakacay ee gudaha dalka Itoobiya ku firqsan marxaladdu hadda waxa ay u muuqataa in Itoobiya ay taagan tahay isgoys toddobada maalmood ee nugu soo wajahan ugu badnaana ay tahay in ay laba jid mid qaado inay hulaaqdo ayna taabato sallaanka siyaasadeed ee ah burburka iyo dagaalada qowmiyaduhuna ay noqdaan kuwa qabiil u diridha iyo dhinaca kale in xukunka Itoobiya isbedelu ku yimaado awood qaybsi la helo ama Abiy Ahmed laftirkiisa lagu gorgortamay inuu xafiiska baneeyo